sanadka maanta ah inoogama dambayso waa in aynu dhexda u xidhanno sidii ay Somaliland u heli lahayd aqoonsi caalami ah. Sidaasi waxaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal oo shacabka Somaliland ee waddanka Mareykanka ku guubaabiyay inay dhammaantood safiiro noqdaan iyo diblomaasiyiin ka shaqaynaya sidii ay Somaliland u heli lahayd ictiraaf caalami ah iyagoo ka faa'iideysanaya kacdoonka waddanka Mareykanku uu horkacayo ee haatan midhadhalkiisa la sugayo. Bakaal oo aan ka dhex muuqanin wafdiga madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu hogaaminayo ee waddanka Djibouti safarka shaqo u jooga ayaa waxa uu ka soo muuqday magaalada Washington isagoo oo jahliyadda Somaliland ee halkaasi ku guubaabiyay sidii ay guulo waaweyn uga keeni lahaayeen waddanka ay joogaan ee ay Somaliland diblomaasiyadda haatan isku wanaagsan yihiin. wasiirku waxa uu sheegay sanadkan 2025 in aanu la dhaafaynin xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro aqoonsi caalami sidii ay Somaliland u heli lahayd taasi oo ay qaadayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba jooga iyadoo shacabkana uu garab weydiistay sidoo kalena sheegay in ay soo jiitaan shirkadaha maalgashiga sidoo kalena iyagu waddanka maalgashadaan oo qaadaan tallaabooyin Somaliland magaceeda iyo nafceedaba kor loogu qaadayo iyadoo indhaha caalamka Somaliland si weyn ugu soo jeedaan ayay tani ku soo beegmaysaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa markii labaad intii uu xilka hayay ku sugan waddanka Mareykanka iyadoo uu muuday oo aan cid warka haysa jirin markii uu baxayay wasiirku iyo haatan halka uu ku sugan yahay inkasta oo laga dhex waayay wafdigii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo uu labadii jeer hore la socday. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa waxa kale oo uu ka hadlay midnimada iyo isku duubnaanta shacabku qiimaha ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in dimuqraadiyadda laga qabsado oo loolanka iyo tartanka doorashooyinku marka ay dhamaadaan aanay xanafi uga hadheen ama sicil qab siyaasadeed oo deegaamada qaar ay tirsadaan. ballanqaadka Bakaal uu ka sameeyay waddanka Mareykanka ee ah doonistooda inaanu aqoonsiga Somaliland la dhaafin sanadkan aynu ku gudo jirnay 2025 ayaa loo dhigtaagay inkasta oo loo soo dhabar adeegayay 34 sanadood. kanina ma noqon karo sida xeeldheerayaasha diblomaasiyadda falaqaya ay qabaan dhawaaqii kama dambaysta ahaa ee lagu raadinayo aqoonsiga Somaliland balse haatan dunida ayaa aad u danaynaysa bagcadda tan geeska Afrika ku taal.